qaranka la qoro sii maro halkaa ka sii socdo waayahay in gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo weheliyo komishaneer Maxamed Jaamac Maxamed in ayaan wareysi kooban aan kula yeeshay xarunta komishanka qaranka ee Somaliland in yakor ay ku dhawaaqeen in natiijadii kama dambaystahayd ee doorashooyinka qaranka ee Somaliland in gudoomiye shacabka Somaliland waxa ay isweydiinayaan bal in horta marka ugu horeysa si kooban uga waranto doorashada si ay noogu dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin wa mid ilaahay loogu mahadnaqo doorashadu waxay noogu dhacday si nabadgelyo dhammaan 1642 gooboodba waan wada tagnay sidaan halkan ka akhriyeynay 3 goobood oo maxayday cilaadi ku ka dhacday mooyaane inta kale waa la wada gaadhay iyo goob inta la geeyay aan lagu codayn sabab maxayday jiray markaa daraadood intii kale way ka dhacday si qurux badan bay uga dhacday si heer caalami ah oo ka sarreysay waliba maxayday mustawaha Afrika ama Asia ayaynu u qabsanay taasna ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waa horumar kale oo aynu gaadhnay oo halkaaynu kaga sii socon doono inaynu madaxweyne dooranno si xor oo xalaal ah u dooranno in wadanka mingees ilaa geesbari sayla ilaa maxayday meesha la yiraahdo badan halka kalena maxayday taleex ilaa halka ugu hooseysa ee burco ka sii hooseysa Beledhig ama aan idhaahdaba hawd ilaa maxayday waqooyi waynu maxayday wada gaadhnay alxamdulillaah dadweynuhuna si aan la filin bay u soo baxeen si cajiiba oo safaf dhaadheer ah oo nabadgelyada la ilaalinayo oo ay xiiseynayaan oo hataa habeennimadii koodii habeenimo labadii habeenimo saddexdii habeenimo dadka qaar iyadoo dhaxana oo qabow waqti bilihii qabowgeenu ku jirnaa ayay u hurdeen oo u fadhiisteen oo ilaa habeennimadii ay soo jeedeen ilaa subaxnimadii wadeen qaar duhurkii ka rawaxeen iyagoo quraacaan iyagoo aan biyo cabin waa mid maxayday lagu masheerto weyn waa arrin run ahaantii dayasho mudan waa arrin run ahaantii inay Afrika inagu dayato mudan inaynu Afrika horseed u noqono inaynu maxayday dimuqraadiyada iyo doorashada in si toos ah ayaa runtii boqolaal ka mid ah ama kumanaan idhaahdo oo baraha bulshada isticmaalaya ay gudoomiye ku daawanayaan in yar ka horna natiijada ayaa runtii ku dhawaaqday bal adigoo raaliya ee runtii si dadkaasi ina daawanaya ay u ogaadaan sida loogu kala guuleystay in jagada in doorashadii in aad ku dhawaaqday in yar ka hor bal noo sharax ama ku dhisan loo kale noo iftiimi bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala sayyidina maxamed xisbiyadu waxay u kala horeeyeen jaangooyidii aan u sameynay ahayd inay u cud ugu horeyso marka la sheegayo wada kulmiye iyo wadani marka uu cud 23,141 buu helay marka boqolley la yiraahdana wuxuu helay 4.17 boqolkiiba kulmiye xaq ka helay 305,909 cod oo boqolley u dhigamaysa 55.1 boqolkiiba dadkii codeeyay halka wadani ka helay 226,029 cod oo u dhiganta 40.73 cod dadkii codeeyay marka si cadaalada oo xaqsoora oo run ahaantii aan hore looga arangeyada Soomaaliya ku nooshay iyo Afrikadaba ayay noogu dhacday waa mid aynu ku faano magac iyo maamuus bay noo soo hooysay inuu soo hooyin doonta maxayday observerski ama maxayday goobjoogayaashii caalamiga way qireen riboodkii ay xalay soo saareen preliminary-ga ahaa wuxuu sheegayay inay tahay doorasho xora xalaala oo heer caalami ah marka waa mid alxamdulillaah meeqaamkeena kor u qaadi doonta insha Allah in waxaan jecelahay waan kugu soo noqon doonaa su'aasheeda ugu dambaysa in commissioner in Maxamed Jaamac in maxaad ku dari lahayd in commissioner waxaan ku dari lahaa marka hore salaanta iyo aan dadka halkan naga daawanaya ama bulshada ku jirta baraha bulshada ku jirta halkan naga daawanaya dhammaantood waan u mahadnaqayaa mahadnaqa ka bacdi inta warka gudoomiyuhu sheegay waxaan halkan ku kordhinayaa 1,642 goobood baa ahayd in doorashadu ka qabsoonto sida uu sheegay 3 goobood baan ka qabsoomin
1630 goobood oo doorasho ka dhacday mid walba natiijadii lagu tiriyey halkaa goobtaa lagu tiriyey waxaa saxeexay saddexdii u fadhiyey halkaa xisbiyada ee muraaqibiinta ahaa ayaa mid walba fadhiyey hubiyey tirinta saxeexay markii degmada ay yimaadeenna isla goobaa laftigoodii oo goob walba degmadii la keenay ayaa mar labaad natiijadii la keenay inta la egay oo kombyuutarka la geliyey oo sistamka la geliyey ayaa markaa muraaqibiintii heer degmo joogay oo dad madaxa ahaa oo xisbiyada ahaa ayaa iyana saxeexay marka imanka 1630 goobood mid aanu saxeexin muraaqib aanu saxeexin waliba laba muraaqib aanay saxeexin kii goobta iyo kii degmadu ma jirto taasaa caddaynaysaa inay ahayd bahal xora oo xalaal doorasho xora oo xalaala inay ahayd baa halkaas ka cad aanay dhicinna goob laga helay wax ka badan wixii loogu talay inay ka codayaan aanay ka dhicin bal goob walba ay ka soo noqonayeen intii aan lagu codayn waraaqihii aan lagu codayn goobta u asteysnaa intii aan lagu codayn goob aanay ka soo noqonin ma jirto iska daa wax yani dheeraadoo ka soo baxee in xisbiga mucaaradka ee wadani uu cabanaya waxa uu leeyahay goobo ka mid ah ay runtii doorashooyinka waddanka ka dhacan dhowaan lagu shubtay aan ku horeeyo ugu horreyn baa guddoomiyaha komishanka doorashooyinka adoo si kooban guddoomiye uga joogaya xisbiyadu xaq bay u leeyihiin inay maaragtay cabasho keenaan laakiin sidaan imanka nusasacaa ka hor u sharaxnay ummadda ugu sharaxnay way caddahay si bayaana oo qof kastaa fahmi karoon ugu sharaxnay waxa weeyaan goobta laga soo bilaabo sida maxamed sheegayo waxaa u joogay 3 muraaqib saddexdaa muraaqib natiijada way wada saxeexayeen hadduu mid saxeexi waayo cabashu ka soo raacinayay cabashadaa waxaa lagu qabanayay degmadana 3 muraaqib oo ka sarreeya muraaqibiintii goobta ka mansab sarreeya marka xisbiga loo eego oo weliba qaarkood ahaayeen golaha dhexe ee xisbiga ama golaha fulinta ayaa degmadii fadhiyey oo xisbiyahaniina oo aqoon leh waxaanu muddo dheeri ka soo shaqeynayay iyagaa qabanayay dacwada haddaanay dacwo jirin xataa oo aanay soo raacina kay ka shakiyeen waxay odhanayeen war ka shakaneen noo fura waa loo furayey marka loo furo xisbigii waxaa saxeexayay haddana maxay guddoomiyaha degmada komishanka u jooga degmada iyo 3 muraaqib ee maqaamkoodu sareeyo shaambadooduna way ku dhufanayeen way ka soo gudbaysaa gobolka imanaysa hadday gobolka timaadana hadday dacwo timaado oo saduuq yimi gobolkii dacwo ka soo raacdo degmada isagana haddana waa la furayay bal inta istabeel la maraya eeg intaasaa la wada marayay oo intaba xisbi kasta u joogo nin u wakiila oo kaadirkoodii ah oo member ka ah xisbiga oo u dagaalamaya xisbiga oo saxeexaya oo shaambadii xisbiga ku dhufanaya oo documentiska waanu haynaa halkaasay oolayaan way xafidan yihiin halkaasay ku xafidnaanayaan wixii dacwe laga qoro halkaasaa laga raacaya waaba ku qanci waayeen haddana heer qaran bay usoo gudbayso annaguna dub baan u wadeegini intaan markaa kombyuutarka fadhiisano maqsinka weyne kombyuutarka ayaanu tugu eegaynay goob kasta degmo kasta maxaa dacwo ka soo raacay isugeyntu maqaldantay marka waxaasoo dhan aanu isu wadageyno ayaanu sidan hadda idinku sheegaynay u sheegaynay wuu qanci waayay haddana xisbiga soo maaha xaq haddana wuxuu leeyahay innaka xeerkeenna doorashadu waa xeerka ugu furfuran adduunka ayuu ka mid yahay haddana xaq ugu daafuran buu ka mid yahay haddana wuxuu xaq u leeyahay xisbigii inuu dacwo imaka markaanu hadda sheegnay tani waa kumeelgaadh rasmigii maaha tanaanu sheegnay waa kumeelgaadh bal inta tallaabee lasoo maraya eeg waxaa loo gudbayay imanka maxkamaddii sare maxkamadda dastuuriga haddana maxkamadda dastuuriga wuxuu xisbigu u leeyahay inuu 10 cisho gudaheed markaanu gudbino maanta umaanu gudbin laakiin waxaanu gudbin doonaa ama berri ama saa dambe markaanu gudbino laga bilaabo 10 cisho haddana xaq u leeyahay inuu abiil ka qaato oo cabashadiisii sii wato marka adduunka kama dhacdo xagee ka dhacdaa bal ii sheega adduunkaad joogtaan ii sheega meesha ka dhacdo in intaasoo tallaabo laga soo bilaabo halka 50 qof ay iska diiwaan geliyeen ilaa qarankiiyo 700 kuna ayaanu leenahay xisbigii la soco waxaaga sanduuqaaga la soco weliba waxaan kugu darayaa baabuurku markuu ka soo qaadaya alaabta maxayday goobta
waa baabuur weyn saddexda xisbina way la socdaan baabuurka sanaaduuqdaas way la soconayaan ilaa intii ka soo gaadhayso goobtan aanu fadhino hadda oo ah xarunta komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland watahay aad iyo aad baad mahadsantihiin in gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo komishineer maxamed jaamac maxamed aad iyo aad baad mahadsantihiin sidoo sharafteen Allah idin sharfo waxaan leeyahay qaranka wada shaqeysana hambaliyo in akhyaarta kala duwan ayaguna live ka waxaan leeyahay dhamaantiinba waan idin salaamanaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dadkana daawanayna waxaa leeyahay komishin waxaan ku sugannahay xarunta komishanka qaranka ee Somaliland oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijadii doorashada waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo nabadgelyo iyo Somaliland ha noolaato